عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولا العاب حرباي إنان سؤال حلي أدسو بيديسين عن كجوابه سؤالك لو كهريي وحلي موقالك إسامح باينا إنا إيغانا كسو جوابه كومنتيدي نواود آخريي وحا أبادنا إن أود إسابها سمينو وافيرنا مداسنا كومنتيدي وادين كسو جوابه إن شاء الله إن موقالك حلي عن صودقاي qaybtiisa kommentiga ayaa jawaab idinka soo siin doona insha Allah. Markii ugu horeysa gabadhan Riida mar hore inay soo weydiisay haddana way ku soo celisay marka horta kommentiga soo akhriyo. Okay, sida qoraalka idinka muuqda gabadhan waxay tiri waxaan ku riyooday anigoo bas saaran dad badan ayaa saarnaa qof dumar ah soo raacday oo yacni wadada isla soconay baska maxay dhinac taagan ka fadhinay taas kulay muhiim ah noolena waxay kaloo tiri waxaan aragnay qaab qurux badan qorax dhac ayaa waxa ku aadanaa yani baska miraayadihiisa siday ku aragtay yani jawi aad u qurux badan waxyaabo waxay ayaa sabrinayay adee muhiim message-ku dheeryahay dhowr jeer aqriyadana waa ka halka soo saaray marka waa soo gaabinaa inta muhiimadan ka qaadanayna si muuqaalka noogu filnaado. Riyada horta sideeda lambarku bas hadaa aragtid bas ayaan ku safraayay tiri magtahay bas hadaa aragtid bas mise tareen mise waxa la raacay noloshaada ka tarjumaya noloshaada ay ku tarjumaa muhiimad waxa weey sidaad u aragtid waa riwaad aad u wanaagsan ficlan wuxuu noqon karaa safar jamaaca aad ku safri doontid hadayna xadiis nafsi ahayn ya hadaa qof safar ku jira aadan ahayn waxay kala tilmaamaysaa nolol wanaagsan iyo la qaybsasho nolol dad yani haday tahay guur haday tahay shaqo aad qof dad isku darsanaysan yani waxay ahaataba la qaybsasho maxaa kaloo ku jira gabar waxay tiri gabar ayaan isii raacaynay oo yani isla meeshaas inay isku barteen oo eg tahay inuu qofku ugu tashanaa laga yaabaa inuu qof adiga quwad awood mise kuugu tashtaba xagga maadiyan haday tahay haday xagga macnawiyan tahay waxay noqon karaa walaalahaaga saaxiibadaada caruuraadii dhashay wax walbay noqon karaa haddaan fasir u fiiriyo iyadoo kala sareyso waayo qoraalka markii hore si fiican uma arkan iyadoo yani baski ayaa kala sareey meelna god ayay ahayd meelna dalcad camal rubama mishkilo yaryar aan aad badnayn صعوبات ير علاسية ير لكن كبعد فرج ماناي لأنه بس قد كوريوتي أديكو كسفرايا ونبعتك لجيرين يعني aad ku faraxsaneed iyo qoraxda meesha ka soo galayso oo qorax dhac yani jawi qorax dhac quruxdiisu aad aragteen marka reedo way wanaagsan tahay qaybta qorax dhacdan ku bilaabaya ficlan waxay tilmaamaysaa mushkilo soo afjarmay maadaama aad aragtay baskiinoo kala qalooci oo kabacdina qorax dhac qurxsan aad aragtay rubuma adiga caadi ahaanba aad soo martay ciriiriyo culeysa oo haddana aad rajo leedahay li'aanu riid waxay ka muuqataba rajo insha allah isbedel nololeed ayay tilmaamaysaa camuuman haddaan isku soo koobo riid way wanaagsan tahay sidoo kale wadada mustaqiimka oo baska ku dhacay yani baska waxay tiri wada oo toosan oo mustaqiim oo ku socday abaa riidaad way fiican tahay بعد عريري يرجع عليسيو إلهي إنه فرج كوفرايا هدي رأيد ربي كورمية والله يعلم سيدا قرار كان إذن كم وقت قبل وحي تري وحن كوريودي أي إيدي أو جيريوتي أو يعني صان ولاتي أو هو إيدي عند قبنا صو إن وان كعرري المهم ريدا إسكو صوت الدوبة ميت دونكو صان نقضي مفسرين ميلا يريكو كل دويين مثل هذا ابن شيهين وحوليه meydka oo soo noolaaday waxay tilmaamaysaa xiise uu dareemayo iyo mise qofka riida arkaya inay ka dhiman tahay caatafad naxariis iyo jacayl waxay kaloo tilmaamaysaa mise wuxuu leeyahay message kaaga socota xagga meydka yani inuu sadaqo u baahan yahay inuu duco u baahan yahay wallahu yaclam waxay kaloo ibn siri wuxuu leeyahay meydka oo soo noolaaday waxay tilmaamaysaa inuu daarta aakhira aan dhibaato ku qabin oo raaxo ku qabo meydka marna wuxuu leeyahay waxaa macquul ah inay sadaqo iyo u baahan yihiin duco horta camuumanba haddii meyd beri lagu arka waxay tilmaamaysaa sadaqa iyo maxay duco oo qofka u baahan yahay
ruuxdiisa ilaahay si sahla ma ku soo diraayo laana qofka daarta xaqa jooga riyadiisa shaydaan iskama dhigi karo riyadiisana been ma noqon karto marba hadaa qof meed aragtid ducooyin badan u sameey inta awoodaada maanta anaga fursada haysanaa iyaga laakiin fursad ma haystaan wixii awoodaadan u sadaqay sadaqadan in la sheeganoo la qariyo ayaa wanaagsan xataa caamaasha wanaagsan ducooyinka wax loo sameynaya inay sir ahaadaan haddii meydkaa quruxsanaa in la bisneed dhowl cadeynaysana daarta aqare dhibaato kuma qabta rubamaa wallaahu yaclamu ilaahay inuu ugu talagalay inuu riyadaba idinkaga nasteexay oo idinku tusay ayeeyadaada maadaama ay qof weynay tahay ayeeyo tahayna sidaan idin sheegay sidaan kuu sheegay qofka riyada arkaayo rubama ay ka dhiman tahay naxariis mise jaceyl mise wax uu tabanay ay jirtaa qalbiyan wallaahu yaclam isku soo duduubo una duceey waxana u sadaqay wallaahu yaclam gabadha waxay tiri waxaan ku riyooday anigoo dhul xaaqaaya garoobaan ahay xaaqitaanka dhulka gabadha garoobka waxay tilmaamaysaa ka dhamaasho wixii hore qalbigaaga wax hore haddii wax ku jiri ka tatartaan mise ka meerasho waxay kaloo tilmaamaysaa bilaabitaan nolol cusub wado cusub aad maraysid mise aad isku diyaarinaysid mararka qaar waxaa jira aad waxyaabo qaar aad go-aan ka qaadanaysid oo diyaar u noqonaysid inaad noloshaada bedeshid ibnu siriin wuxuu leeyahay haddii markaa dhulka aa xaaqday nadiif ahaa yacni waad nadiifisay matala qashanaad ka dhamaysay waxay tilmaamaysaa arsaaqadii xoolo waxay kaloo tilmaamaysaa faraj albaabyo kaa xirnaa kuu furmaayo rubamaa hataa guur waayo maadaama arsaaqaday meesha soo gashay guurkan arsaaqaduu ka mid yahay mid kalena way noqon kartaa maadaama waxaa dhulka laga xaaqay ay yihiin wax wasaqa qashan ay yihiin rubamaa dad xumaay qalbigaaga ka saari doontid noloshaada yacni dad aan munaasab u ahayn noloshaada inay ku jiraan iyo go-aan adiga aad qaadato go-aankaas insha allah ku guuleysan doontid wallaahu yaclam mar walba aad go-aan mise wax la go-aansanayo waxaa wanaagsan dikriga iyo salaatul istiqaariya inuu rabbi la tala saarto walaalayaal maadaama muuqaalka qayb weynay soo hartay waxaa rabaa inaa idinla wadaago waxaad dalbateen inta badan whatsapp aniga way igu culus tahay facebook ayaa ii fudud markaan fikiray laakiin haddan haddii daruuri aad tihiin waxaa codsan lahaa qof inuu ila soo hadlo qaybta commentiga maxay ahayd oo ii sameyn karo lambar soomaali inuu isiiyo mise ay lambar aan ku samaysto whatsapp haddii arintaa macquul tahay qofka awooda hayla soo xiriira kabacdi facebook mise meelahaasaan isku wacaynaa anigaa sidaa wax uraw fahansiin doona halkaasaan kusoo koobaya walaalayaal laag saara asxaabtiina la wadaaga isbedel aan arko xalayn waxaa idinka codsaday inaan isbedel aan arko anigana dhiirigelinay noqonaysaa insha allah waxaan xooga saaraya sidaa idiin ballan qaaday inaan idiin soo jawaabo su-aalihiina inaan kasoo jawaabo insha allah